xukunkan waxaa maxkamaddu ay ku dhawaaqday maanta oo bishu tahay 30 bisha toddobaad 2018 xukunkan waxay maxkamaddu u cuskatay qodobka 70 72 72 73 103 60 boqol iyo 8 faqradda koowaad 120 ee xeerka habka ciqaabta iyo qodobka sharciga ay ku gafeen ee xeer lambar 57 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka midkiiba waxay maxkamaddu ku xukuntay 6 bilood oo xadhig ah iyo min 3 milyan oo ganaaxa si loo ilaaliyo naftooda iyo nafta dadweynaha ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hantidooda iyo hantida dadweynaha labadaba. 3 maxkamaddu waxay xorriyadooda u celisay 3 eedaysane ee liisamada hor keenay maxkamadda iyo sharciga hortiisa. dhanka kale maxkamadda degmada Hargeysa ayaa amarkani fartay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland. wasaaradda gaadiidka waxa maxkamaddu ay ku amraysaa inay dadka ajaanibka ah ee aan lahayn rukhsadda ama igmashada fasaxa rukhsadeed ee liisamada ee magaalooyinka baabuurta ku dhex wata in gaadiidka ay wataan laga xareeyo lagana qaado haddii ay liisan haystaan cantataba oo si sharci darro ay u qaateen haddii aanu sharcigu ogolayn kuwaas oo nafta dadweynaha ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland khatar gaarsiin kara ilaa nafbaxa ilaa hantidooda baabin kara dib loogu soxo sharciga.